hal ruux ayaa geeriyooday 6 kalena waa ay dhaawacantay kadib markii rabshado dhex maray dad shacaba iyo ciidamada booliisku ay ka dhaceen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha cisbitaalka Burco Cabdikariim Hayaan Maxamed. dadka dhaawaca ayaa waxaa ku jira 2 askari oo ka tirsan ciidanka Somaliland. qofka geeriyooday ayuu sheegay agaasimuhu inuu dhaawac u dhintay halka 6 ruux oo kalena ay yaalaan isbitaalkooda oo 2 ka mid ay yihiin askarta dawladda. xaaladda dadka dhaawacyada ayaa ah mid hadda fiican isla markaana waxaa degan guud ahaan xaaladda magaalada Burco sida uu agaasime Cabdikariim Hayaan Maxamed noo sheegay. rabshadaha ayaa dhacay kadib markii doorashadii Isniintii dhacday la sheegay in lagu shubtay iyadoo xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka mid ah asxaabta sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijo xaaraan ah iyaga oo sidoo kale joojiyay wada shaqayntii kala dhaxaysay guddiga doorashooyinka. shirkadda imaaraadka laga leeyahay ee daabacday warqadaha doorashooyinka ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha lagu eedeeyay musuqmaasuq. wixii warar ee ka soo kordha kala soco warbaahinta Warner Media.